Sheekadani waxay ahayd sheeko aad u cabsi badan, waxayna igu dhacday beri aan ka shaqayn jiray meel lagu baadho meydka ama dadka dhintay. Xilligii aan shaqada ku jiray, waxaan iska cabbi jiray sigaarka, waxaanan ahaa mid nolosha ka dhacay, balse dadkaan la shaqayn jiray shaqada way igu hamin jireen, sababtoo ah waxaan lahaa khibrad aad u sareysa, shaqadeydana waan ka soo bixi jiray. Habeenkan shaqada waxaan bilaabay saacaddu markii ay ahayd 2 habeenimo. Anigoo shaqadii ku guda jira ayaa waxaan damcay inaan soo qabsado qalabkii lagu baadhay dadka dhintay. Kadib waxaan maqlay cod xaggayga dambe ka yeedhaya, sidoo kale waxaan dareemay in qof neefsanaya uu meesha ku jiro. Markii aan soo jeestay, waxaan arkay meydkii aan ka shaqaynayay oo ay indhihiisu furan yihiin. Waxaanan damcay inaan qaato cunto yar. Kadib anigoo jabis iska cunaya ayaa waxaan maqlay cod ka yeedhaya qolkii aan ka soo baxay. Waxaanan damcay inaan soo eego, balse intii aanan gaadhin ayaa waxaan maqlay qosol. Waan soo dhaqaaqay, waxaanan is idhi waxaan qoslay soo eeg, balse waxaa iga soo horbaxay mid ka mid ah meydadkii. Waan la yaabay, aad ayaanan u naxay, halkiina waan ka dhaqaaqi kari waayay. Mar waxaa igu soo dhacaysay ma carartaa, haddana waan carari kari waayay. Kadib xaggayga ayuu soo dhaqaaqay meydkii, balse waan ka yara jeestay. In yar ayaan indhaha isku hayay, kadib ninkii waa aan waayay. Markaliyaanay albaabadii oo dhan wada furmeen, maskaxdayduna way isku dhex yaacday, waanan khalkhalay. Waxaanan isweydiiyey waxay waxaan dhacay. Kadib waan isku yara booqay, waxaan sameyn garan waayay. Kadib waxaan la hadlay mulkiilihii dhakhtarka, waxaanan u sheegay waxa dhacay. Waxa uuna ii sheegay inay wax iga khaldan yihiin, waxaanan garan waayay inay tahay waxyaabaan arkay aniga oo kaliya.